Kamaal Kalidaaro-Ogle ma u malaynaysan inuu yahay ruux aan la caawinaynin waa ninka ku dhawaaqaya dibna ugu celinaya erayada madaxweyne Joe Biden reer Istanbul idinka ayay gacantiina ku jirtaa cidda aad u codeynaysan iyo natiijada kama dambaysta halka aad isleedihiin dalkiina way u wanaagsan tahay erayadaas iyo kuwa kale waxay kamid ahaayeen fariinta ugu dambaysa ee madaxweyne Erdogan uu jeediyay ee ku saabsan ololihiisa doorashada ee dalka Turkiga maanta ololaha doorashada ayaa la soo gabagabeynayaa goobaha ugu badan ee ay mucaaradka iyo muxaafidka xoogga saarayaan waa Istanbul, Ankara, Samsun, Adana iyo sidoo kale gobolka Izmir waana goobta ay koox walba doonayso in codad badan ay ka hesho si gaar ahaaneed magaalada Istanbul qaybtan waxaan ku eegi doonaa fariintii ugu dambeysay ee dhinacyada kala duwan ee loolamaya si gaar ahaaneed Kamaal Kalidaar iyo sidoo kale madaxweyne Recep Tayyip Erdogan madaxweynaha dawladda Turkiga Recep Tayyip Erdogan wuxuu ololihiisa doorashada ku soo gabagabeyn doonaa masaajidka Hagia Sophia oo ku yaala magaalada Istanbul ee dalka Turkiga waa masaajid aad u weyn oo muddo 82 sano kadib oo madaxweyne Erdogan ku guuleystay in masaajid dib loogu celiyo maadaama uu ahaa madxaf sababtu waxay tahay waxa la leeyahay Erdogan waxa uu ka codeynaya magaalada Istanbul maadaama adreeskiisa uu halkaasi uu yahay waa halkii uu ka soo bilaabay siyaasadda Istanbul 11 milyan iyo ka badan ayaa codkooda dhiiban doona madaxweyne Erdogan wuxuu fariin u diray shacabka magaalada Istanbul oo uu sheegay in iyaga ay yihiin cidda kama dambeynta go'aamin karta dalka iyo hoggaanka uu yeelanayo Kamaal Kalidaaro-Ogle waxa uu doonayaa inuu ololahiisa doorashada ku soo gabagabeeyo Samsun iyo magaalada Ankara maalintii shalay dad badan oo taageerayaasha xisbiga CHP ama midowga xisbiyada Erdogan la dagaalamaya ayaa ku kulmay halkaas khudbada ayay ka jeediyeen gabadha lagu magacaabo Meral Akşener ayaana ku weelinaysay Kamaal Kalidaar magaalada Ankara Samsun waa halka loo arko inay ku badan yihiin taageerayaasha xisbiga CHP oo uu aasaasay Mustafa Kemal Atatürk madaxweynaha dawladda Turkiga fariin ayuu u diray marka shacabka magaalada Istanbul waxa uu yiri qiimo weyn ayaad ku fadhidaan haddii aad doonaysaan inaad cilmaaniyada u hiilisaan iyo haddii aad doonaysaan horumar inuu gaaro dalkeena qiimaha aad ku fadhidaan waa inaad ogaataan idinka oo aad doorataan ruuxa hoggaanka idin noqonaya 5 sano ee soo socota fariinta kale madaxweyne Erdogan ee kama dambaysta ee maanta u jeeday waxa uu yiri reer galbeedo waa inaad maanka ku haysaan oo aad ogaataan dalkayga iyo dadkaygaba way tashadeen Erdogan waxa kale uu yiri maalinta birri ah waxa guuleysanaya 85 milyan ee muwaadiniinta Turkiga waa yeelka caruurta dhalinyarada iyo sidoo kale qof kasta oo qalbiga ka jecel una duceysay muwaadiniinta dawladda Turkiga waxa kale birri guuleysanaya dadka la dulmay ee ku nool guud ahaan caalamka sidaas ayuu yiri madaxweynaha dawladda Turkiga Recep Tayyip Erdogan isla markaana ah musharax madaxweyne oo doonaya mar kale in 5 sano ee soo socota hoggaanka uu qabto dalka Turkiga Erdogan wuxuu si weyn u weeraray Kalidaaro-Ogle waxa uu yiri ninkan waxa uu tagay aqalka cad ee dalka Mareykanka sida daraadeed waxa uu ku celinayaa waxa maanka Joe Biden ka guuxaya sidoo kale wuxuu ka jawaabay eedayntii Kamaal Kalidaar oo u jeediyay dawladda Ruushka oo waxa uu yiri Ruushka ayuu ku eedeeyay in ay ka dambeeyaan fargelinta arrimaha doorashooyinka ee dalka Turkiga waxaan u cudur daarayaa oo aan raali gelinayaa madaxweyne Putin iyo shacabkiisa Turkiga iyo Ruushka waxa ka dhaxeeya xiriir aad u wanaagsan kaas oo ku saleysan dhinacyo badan waxaan rajaynayaa in isagaba taageero la'aan uusan ahayn anigu ma dhahayo Mareykanka Ingiriiska Jarmalka iyo wadamo kale oo Faransiiska ay kamid yihiin ayaa faragelinaya doorashooyinkeena sababtoo annaga ayay ceeb inagu tahay 15 bisha May ayaa inoo ballan wuxuu waagi noogu bariyo ayuu yiri madaxweynaha dawladda Turkiga Recep Tayyip Erdogan imaada isu soo baxa oo codkeena dhiibta taageera dadkeena una heliya dalkeena oo ku rida sanaadiiqda codadka waxa maankeena uu jecel yahay madaxweynaha dawladda Turkiga marka waxa muuqanaysa inuu jeediyay fariintiisii ugu dambeysay ololaha doorashada oo uu dadkiisa kaga dalbanayo inay u codeeyaan isaga oo ay dib u soo doortaan waxa kale oo uu sheegay shacabka magaalada Istanbul inay yihiin kuwa ugu muhiimsan ee targetka u ah dhinacyada ku loolamaya doorashooyinka guud ee dalka Turkiga Kamaal Kalidaar sidaas oo kale eedeymo ayuu u jeedinayaa madaxweynaha dawladda Turkiga qaybaha ugu dambeeya ee doorashooyinkana aad ayaa la isu weerarayaa Erdogan waxa xisbigiisa lagu warramaya inay ku soo biirayaan xubnihii taageerayaasha u ahaa xisbiga Muharram Inji uu hogaaminayay oo xisbiga dalka ahaa Muharram Inji doorashada uu gabiyahan isaga haray iyadoo saacad ay ka harsanay doorashooyinka guud ee dalka Turkiga Sinan Ogan ninka lagu magacaabo madaxweyne Recep Tayyip Erdogan iyo Kamaal Kalidaaro-Ogle ayaa isugu soo haray guud ahaan
wareegga koowaad ee doorashooyinka guud ee dalka Turkiga. maalinta biri ayaa la codeyn doonaa. wareegga labaad hadii loo baahdana 28 ayaa la codeynayaa. waxaana guuleysanaya madaxweynaha wareegga koowaad kaga soo gudba codadka hadii la tiriya gaara 50+1 ama 50+1 oo cod hal dheeri ah. haddii ay ka gudbi waayaan labada musharax ee ugu codka badan ayaa wareegga labaad isla aadi doona. mar walba waxaan kula wadaagi doonaa wararkii ugu dambeeyay insha Allah oo doorashooyinka guud ahaan ee dalka Turkiga ah. macluumaadkan lamid intaan ku kulmi doona nabadgelyo.